maanta waa maalinkii ugu horeysaan kalluunka salmon aan ku dubayo ama aan ku sameynayo daawaha. Hadda ka hor maanan isticmaalin, just ovenka ayaan isticmaali jiray. Marka sidaad arkaysaan stainless steel maadaamaan haysto salku igaga dhigaya, waxaanu isticmaalayaa parchment paperka, warqadda ma gubanayso laakiin at the same time-na igagama dhigayo daawaha. sidaad arkaysaan kalluunka waxaan kusoo sameeyey bas xawaaji badan uma isticmaalin, cusbo, filfil iyo xoogaha toon aan jarjaray. marka hore labada dhinac ayaan caseeyey, kabacdiina insha Allah dabka intaan u gaabiyo ayaan hurin doonaa siduu dhexda uga bislaado. sidaad arkaysaan markuu soo bislaanayo ayaan korka waxaan kaga darayaa liin dhanaan badan. liin dhanaanta macaan uu ka dhigaa, caafimaad ahaana caloosha way u fiican tahay. kabacdi haddana liin dhanaantan malaha 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ku hurinaya. hadda sidaad arkaysaan ma qalalin, takale kalluunka inuuna qalalin ayuu ku macaan yahay, markuu dhexda ka qoyan yahay ayuu macaan yahay. sidaad arkaysaan markuu noqdo waa diyaar weeyaan, aad ayuu u macaanaa. xawaajiyaal badanna intaanu isticmaalo waan ku tijaabin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. non-stick panka haddaadan haysanin parchment paperka isticmaala, aad ayuu fiican yahay, tijaabiya.